inaynu caawa u dabaaldegayno 61 sannadood oo ka soo wareegay maalintii aynu xornimadeena qaadanay ku raagi maayo taariikhda aad baa loo qoray oo kutubta qortay oo waa laga dheragsan yahay taariikhda hore ee Soomaaliland si kooban markaanu idhaahdo qarnimada markaynu qaadanay sidii uu sheegay imka baasha Axmed Faarax qaybtii horeba waa la isku diiday shan Soomaaliyeed baa loo socday shantii oo la doona mooyee labadii isu tagay ayaa dawladii Soomaaliland markay koonfur tagtay waxba loo ogolaan waayay qayba halka qardoofadii ka dhacday iyo khilaafkii ka dhacay 61 inqilaabka waati halkan laga dhigay inkastoo uu suurto galin intii ka dambeysayna qaxar iyo colaad iyo buuq bay noo ahayd shan Soomaaliyeed hal doona waa la waayay waayo sharciyada adduunka ku shaqeeyay inaga xooga waaweyn ayaa diidanaa inaguna ma inaan lahayn aqoon dheer oo siyaasadeed saylka habka adduunka ragga xooga leh ugu taliyo marka ma inaan ku guuleysan in shantiisu yimaadaan maantana sidii uu sheegay senatorkii Kenya qolo waliba halkeedii bay ku nagaatay saddexdii kale labadoodii wada joogayna laba dagaal baynu galnay 64kii iyo 67kii oo labaduba culayskoodu ku dhacay Soomaaliland waayo dagaalka u weyn ee Itoobiya la galay wuxuu ku dhacayay Soomaaliland oo ugu dhow meesha Itoobiya la isku qabsanayay oo culayska lahaayeen ay tihiin labadii midna guurweyn kamayna gaarin waayo caalamka inaga soo horjeeday dabeetana waxa dhacay dagaalkii 77kii bishii February markii laga soo noqday labadii midoobay oo marka horeba colaad iyo guux dhex yaalay markii adduunka inaga hor yimid ee Ruush iyo Kuuba iyo cidii kale oo tiba ay isugu tagtay Soomaaliyeedii loo ordaayay shantii dhabarka laga jabiyay ee adduunka inaga hor yimid nasiib darro dawladii markaa talinaysay may garanin ama may ku dadaalin haddii la soo jabay oo caalamka inaga hor yimid maxaynu yeelaa see loo badbaadaa see labadana yeelaa balse waxay door biday inay aragto inuu reer waqooyigu yahay dad badan oo dawladaha ka soo horjeeda horteed markii ay wada qaateen prime minister iyo madaxweynahaba 67kii dawladii Cabdirashiid ayaa prime minister reer waqooyiga Maxamed Xaji Cabdi ka dhigtay 2 sano lagu inqilaabay iyadoo laga cadhaysan yahay sidee reer waqooyi prime minister uga noqon kara dadkana waxa abuurmay hal jabhado iyo dadkii oo kala yaaca labadii dal midka ahaa Somaliland nasiiboonaag waxay soo halgantayba markii ay burburtay dawladii dhaxa ee labada dal isugu tagay 1990kii Somaliland taladeedu waxay noqotay intay soo timid inay tiraahdo inagu waxayna dhisan intaasaan ku dhaafaya taariikhda hore ee ilaa 1990kii 1990kii wixii ka dambeeyay aynu galno waxaan doonayaa caawa inaynu isu sharaxno maxay ku kala duwan yihiin Somaliland iyo Soomaaliya inagu Soomaaliland haddaynu nahay marnaba colaad iyo faragelin iyo dagaal ay ku qaadamayna qaado iyagu ha ugu daraataa maanta joogta xamare waad ogeydeen markii berbera aynu la heshiinay qolada carabta inay horumariyaan waxay nagu yiraahdeen baarlamaanka xamaro ogolaado lama iman karo dawladda imaaraadkana ilaa United Nations ka dacweeyay oo dalka ay farageliyeen gobolada iyaga naga soo farageliyeen waxay soo taageen inay yiraahdaan sanduuqii loo furay dhaqaalaha Somaliland ee lagu heshiiyay shirkii London 2012kii in si gaar ah dhaqaalaha Somaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwadaan annagana la ictiraafsan yahay looma gudbin karo wana qabatay dhaqaale waxa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan 60 milyan oo asad afartii sano dawladda xamar joogtay maanta ee farmaajo ka madaxdeeya banka adduunku uu u qoondeeyay Somaliland oo iyagu soo qaadeen oo yiraahdo anaga u geerina oo aan ku niri annaga qolada waxba naga dhaxeeyaan lacagna noo soo mari karto
oo aanay celinin ee weli meeshooda ku hayaan haddana waa u sheegaynaa banka adduunka iyo hay-adaha United Nationska jibcada waraxaya iyo dawladaha kale annagu qaran madax banan baanu nahay ninkina wax nala damca ee aan iskaashanayno ama na caawinaya toos buu noo siinaya laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkooda haysta inta ayaan ka badanba waayo gobonnimadooda kuma doorsanayna lacag nalagu gacan maroojin maayo dhaqaala la diiday si cad baan u sheegaynaa annagaana ka adkaysanayna si aanu hore ugu marayno dalkayaga markaan soo koobo caawa xamar waxay leedahay waxaanu u dabaaldegaynaa gobolladii waqooyi xorriyaddooda anugu meelka dhaca ka weyn iyo gardarre intaa ka badan garan maayo in caawa xamar ay tidhaahdo annagaa xukunno oo somaliland waa gobolladii waqooyiga oo waxaan u dabaaldegaynaa xorriyaddoodii xaggana somaliland dagaal gudaha ah iyo mid xabada iyo mid cunaqabatayna iyo mid diblomaasi ah iyo mid midyaalan ku haynaya inaanay madaxa kor u qaadin haddana waanu dabaaldegayaa iyagoo gobollo ah waxay ila tahay waa gef iyo meelka dhaca ugu weyn waxaase la yaabanahay qolada somaliland ee taa kagala qaybgelaysa ee ugu sacabinaysa waxaan kusoo koobayaa wixii badnaa ee inoo qabsoomay iyo intaa kooban oo aan u sheegaya da'yarta waxay noo dhexeeya innaga iyo soomaaliyada la sheego in ay somaliland maanta taagan tahay meel ilaahay lagu mahadiyo hadday horumar tahay hadday karaamo tahay hadday ixtiraam caalamkaa tahay hadday gudaha nabadeedaa tahay hadday doorashooyinkaa tahay waana nimco ilaahayna siiyey waxaana kow mahaddaane oo arrintaa aan ugu mahadnaqaynaa shacabka somaliland meel uu joogo oo dhanba haddaynaan sidaa wada guushaa waynu wada leenahay qof kastoo somaliland baa qayb ku leh oo somaliland aaminsan shalay berbera caalamka ciddii daawatayba iyo ciddii aragtayba way ku faraxday ee somaliland dadka kalena qadarin iyo karaama ay nooga kabantay walaalayaal dadka maskaxdooda way kala duwan tahay waxaynu ognahay 4 sano ka hor markii arrintaa axmed siraayo uu bilaabay madaxweynihii hore ilaahay aa ka abaal mariyee uu hindisaha galayay sidii looga hor yimid waxay ahayd ka horimaatankii ugu weynaa oo wax lagu hadlaayay iyo sida loo dhigaaday aad yaabto waxaa ka hor yimid siyaasiyiin dad shiciboo la jahaweeriyey oo berbera la dhacayaa dhulkii baa la qaadanayaa oo aan isweydiinayn ma dhulkaa cidi rartaa oo duufaano adag ka hor yimaadeen waxaa la gaarsiiyey xisbiyada mucaaridka qaarkood inay yidhaahdaan axmed siinaayo waa khaa'ir waddan in maxkamada la geeyo guddoomiyihii wakhtigaasee kulmina uu ku raaco labaduba waa dambiilayaan inay yidhaahdeen ayay taariikhdu qoraysaa waxaa ilaahay mahadiya in ra'yigaa uu siraaya bilaabay ee kulmiye qorshihiisa ku jiray in maanta kii ka soo horjeediyey kii kale si isku mida farxad iyo damaashaad uga wada qayb galeen oo somaliland oo shacabkooda tumaysay taariikhdaana qorta dadka visionka dheer leh qaranka danaynaya halku u joogo iyo cidda ay taladu kala kooban tahay meel gaaban oo ama dan gaara ama hebel waatee ku xanib ay tahay walaalayaal taariikhda kala qoraysa maanta waxaynu gaadhnay guul caalamkoo dhan uma jirto oo dimuqraadiyadda oo siyaasiya oo dhammaanteen guushaa aynu wada leenahay oo adduunkoo dhammi qadarin bari iyo galbeed inoogu hayo doorashadii aynu gallay walaalayaal dhib kasta hanaga soo marto xisbiyadu waan isku qabsan in badan baa lagu murmaayey in badan baan dowladda ka riixayn haddaan xukuumadda nahay in badan baan lagu qoriyey ilaahay mahadii waanu ku heshiinay waan uga mahadnaqaya xisbiyada mucaaradka daal dheer ka bacdi waanu ku heshiinay waxaa mahadda labaad sii leh shacbiga naga qaatay waar aynu nabad ku conayno waar kii soo baxaaba waa keeni iyo xisbiyadow iyo xukuumad madaxweynow arrintaa dhexaan ka noqonno dhexdaa aynu ka noqonnay iyo shicibkoo waaladii qaatay ayaynu ku guulaysanay maantana waa guur somaliland oo u dhana
waxaan kusoo gabagabaynayaa halkan waxaan doonayaa inaan kusoo dhaweyn uga mahadnaqo xildhibaanadii ku guulaystay doorashadii kuwii aan guusha maanta soo bixina britain way soo baxayaan waana kayd qaran oo may khasaarin waxaan xusayaa inaan aad uga xumahay ay somalilandna halkaa ku taallo dhaliil ah inaan mujtamaceenna qayb ka mid ah boqolkiiba 50 ka mid ah mujtamaceenna aanu ku soo bixin doorashadii golayaasha oo ah dumarka oo nus dadkeena ah waana foolxumo nagu taala in qarankeena nus dhammi soo bixi kara waayo oo hawsh dalka ay nala leh warana maskaxda way soo dhawaadeen haweenkii tartamay waana ku bogaadinayaa